بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu ahayd 19 bisha saddexaad 2020 waxaa sidii caadada ahayd noo qabsoontay shirkii golaha wasiirada ee caadiga ahayd la qaban jiray shirkan oo ka duwanaa kuwii hore waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka shirkan oo muhiimadiisu ajandayaashiisu ahayn laba qodob ugu waaweyn in xukuumadda iyo golaheeda fulinta ee gobolada iyo degmooyinka iyagoo wada jira ay si midaysan uga doodaan go'aanadii ka soo baxay shirweynihii wada tashiga ee Puntland kadibna iyo qodobka labaad oo ku saabsanaa xanuunka coronaviruska ama COVID-19 ee waayadan dambe ku fidaya dunida runtii labada ajandood waxa ay uga wada qayb qaateen wasiirada iyo golayaasha fulinta ee dawladda ee heer gobol iyo heer degmo maadaama uu ahaa laba qodob oo heer state ah si midaysan ayaa loo lafaguray waxaa goluhu isku raacay dhammaan in la soo dhoweeyo go'aanadii ka soo baxay shirkii wada tashiga ee ku qabsoomay 15 ilaa 17 magaalada Garowe shirkaas oo runtii ahaa shir taariikhi ah waxa goluhu si midaysan isugu raacay inuu dhammaan qodobadii halka ka soo baxay uu wada qaatay aqbalay xukuumad ahaanna ay go'aansadeen in ay baaqaas loo soo jeediyay inay si midaysan u wada fuliyaan heer degmo heer gobol iyo heer dawlad dhexba runtii sharaf weyn ayay noo ahayd inuu shirka qabsoomo waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay waxaan uga mahad celinaynaa golayaasha dawladda kale sida golaha baarlamaanka golaha garsoorka golayaasha heer federaal Puntland u matala golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada iyo golaha aqalka sare iyo dhammaan ergooyinka ka yimid gobolada siyaasiyiintii waxgaradkii haweenkii dhalinyaradii iyo ismadii oo lafdhabar u ahaa waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen dareenka fiican ay uga qayb qaateen muddadu shirka socday oo aan caajiska lahayn siday doodaha waxtar kale uga dhiibteen sida loo soo ururiyay wixii ka soo baxay shirka runtii wuxuu ahaa shir taariikhi u ah Puntland wuxuuna gelinayaa xukuumadda iyo dawladda Puntland dhiig cusub oo ay rabaan in ay ka jiba keenaan waxa ay dadkoodu ay tabanayaan waxaan si gaar ah hoosta uga xariiqnay go'aamadii ka soo baxay oo ugu muhiimsanaayeen ilaalinta midnimada Soomaaliyeed ee dhul iyo dadba sidoo kale ilaalinta midnimada Puntland dhul iyo dad iyo xuduudba waxaan aad uga mahad celinaynaa ballan qaadayna haddaan nahay xukuumadda inaan ku shaqeyno rabitaanka bulshada iyo baaqooda ayaa saldhig u ah qorshayaasha dawladdu ay ku shaqeyn doonto waxaan rajaynaynaa in dawladda laga dheehan doono annagoo wada jirna isbedelkaas muddada xileedka noo dhiman ku dadaali doono tabashadooda inaan intii aan gaarno aan wax ka qabanno wixii aan tabarinoo diidin qodobada sida aadka loo dul istaagay oo ku saabsanaa hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda sugidda amniga adkeynta midnimada guud iyo wax ka qabadka kaabayaasha dhaqaale ee dalku u baahan yahay oo horumarka qayb ka qaadanaya intaasba waxaan rajaynaynaa inaan si mug leh wax uga qaban doono qodobka labaad oo shirka ka soo baxay marka laga tago kan ku aadan Puntland wuxuu ahaa qodobka ku saabsan midnimada Soomaaliya iyo sidii xal waara loogu heli lahaa geedi socodka dawlad dhiska ee Soomaaliya runtii shirku wuxuu soo bandhigay oo xukuumadda uu soo jeediyay in gogol labadeed la qabto in dalka oo marxalad siyaasadeed oo cakiran ku jira laga saaro inay dawladda Puntland ay gogol dhigto Garowe waan aqbalnay horena waan u aqbalnay haddana waxaan ku celinaynaa annagoo golihii ah inaan aqbalnay inaan gogoshaas dhigno waxaan sidoo kale goluhu isla gartay inaan aniga iyo wafdi aan hogaaminayo aan ku tagno caasimadda dalka iyo caasimadaha dawladaha xubnaha ka ah dawladda Soomaaliyeed si aan gogol xaar ugu sameeyno inay gogoshaasi miro dhasho laga soo qayb galo lagu booriyo in marxaladan Soomaaliya waxay dadka ka sugayso ay laga helo
waxaan rajo weyn ku qabnaa sidii gogashii wada tashiga ee Puntland u qabsoontay una hirgashay in gogashaasna ay u qabsoonto una hirgasho haddii ilaahay idin ka dhigo waana ku rajo weynahay xukuumad ahaan inaan aanan waxba hakran doonin diyaarna u nahay inaan kaalinta nagaga aadan sidii horeba aan loogu bartay inaan kaalinteena qaadano waxaan rajaynaynaa adkeynta midnimada Soomaaliyeed hirgelinta nidaamka federaalka iyo horu socodka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan sidoo kaleeto cid walba oo deegaanada kaleeto iyo maamulada kaleeto ee Soomaaliya ugu baaqayna ayagana in ay Puntland wadada ay martay oo ah wada tashiga oo aan cidna laga saarin talada in la wada qaato dalka Soomaaliya dadkiisa dhan buu u baahan yahay mid xukuumadaha ku jira mid golayaasha baarlamaanada ku jira iyo waxgaradka kaleeto ee aan ku jirin maxaa yeelay siyaasiyiintu xilka ninba mar buu hayaa kuwa hadda jooga kuwa ku jiray kuwa imaan doona marka waxaan rajaynaynaa geedi socodka nabadda Soomaaliyeed inaan cidna banaanka laga dhigin dadkuna ay wada sinaadaan lagana faa'iideysto awoodahooda kala jira iyadoo ay hogaaminayaan hay'adaha dastuuriga ay dadku doorteen oo sharciga u leh inay hogaaminta dalka iyagu leeyihiin iyagoo lagu haysan annagoona lagu haysan haddaan reer Puntland nahay mandatekeen uu yahay ayaa haddana si aan u ilaalino midnimada iyo wadajirka shirkaan u qabanay talooyinkooda u dhagaysanaynaa wixii naga maqnaana aan rajaynaynaa inaan ka faa'iidno wax badan baan ka faa'iidnay oo ugu muhiimsan tahay dareenka saxda ah ee deegaanada ka jirta wax badan oo aan ku farxnay baan aragnay dhaliilo badan oo aan leenahay baan aragnay waxaan diyaar u nahay wixii dhaliilana inaan toosino wixii wanaaga hore u jirana aan sii adkayno horena u sii soconno waana rajaynaynaa in shirka iyo gogashaas Soomaali uu ugu baaqay shirweynuhu xukuumadana uu igmaday inaan haddaan xukuumad ahaan nahay in aan kaalintaas qaadan doono si dhabana aan u geli doono dhawaana aan diyaarintaas iyo kala soo tashan doono waqtiga ku habboon iyo sida uu habboon iyo sida uu noqon doono dadka talada nala wadaago ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah qodobka labaad oo shirka maanta looga hadlay wuxuu ahaa xanuunkan aad u fidaya ee adduunka waxaan marka ugu horeysa ilaahay uga mahadnaqaynaa muddadii shirkaas noo socday oo cabsi badan laga muujinayo isku imaantiga iyo dadka intaa laga isku yimaadaan inuu ilaahay uu noo yasiray oo xilli shirkaas uu noo dhamaaday aan xanuunkaasi Soomaaliya soo gaarin khaasatan Puntland uu soo gaarin ilaahay baa mahadiisa muddadii shirku maalintii uu gabagabada noo ahaa ayaa hal xaalo laga sheegay magaalada Muqdisho oo iyadana aad loo xadiday oo meel ku habboon lagu hayay qofkaas si aysan u fidin waxaan rajo weyn ka qabnaa in xaaladaas ay ku ekaato Soomaaliya oo aysan xaalado kala digin maadaama Soomaaliya ay leedahay xuduud dheer oo furan maaragtay isku socodka geeska Afrika uu ballaaran yahay wax walbana ay dhici karaan dadka Soomaaliyeedna ay yihiin dad deegaano kala duwan iyo dawlado kala duwan ku dhex jira khaasatan dawladda Kenya iyo Ethiopia oo labadaba runtii dad Soomaaliya wax ka degaan oo labadaba xaalado laga helay waxaan runtii xukuumaddu garowsatay marxaladan inay tahay in go'aano rasmi ah laga qaato arrimahaas wuxuu golaha si guud isula qaatay in dhammaan goobaha waxbarashada oo ugu horeeyaan dugsi quraanada dugsiyada wax lagu bartay hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadahaba muddo 2 isbuuc la hakiyo iyadoo la ilaalinayo sixada iyo caafimaadka dadka reer Puntland waxaa sidoo kaleeto dadka reer Puntland loogu baaqayaa inay yareeyaan dhammaan isku imaadyada dhici karo ama xafladaha sababi kara in dad badan isu yimaadaan kuwa guurka iyo kuwa faraxa iyo kuwa kasta oo samaysmi kara waxaa hay'adaha dawladda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee jooga la farayaa inaysan qaban karin wax shirar ah iyo sibinaaro ku aadan marxaladda labada wiig ah sidoo kale waxaa loogu baaqayaa in goobaha lagu cibaadaystay masaajidada aad loo yareeyo dadka badan ee ku wada tukanaya oo ay runtii marxaladan dadka intiisa badan ay ku sugnaadaan guryahooda iyo meelo inta badan dadka ka fog si aysan suuragal ugu noqon inay xaalad qaadaan maxaa yeelay aad bay u adag tahay nidaamkeena caafimaad
iyo ka jawaabidda haddii xaaladahaas oo kala yimaadaan. marka waxaan u baahannahay ka hortagga inaan aad u xoojinno. waxaa sidoo kale xarumaha dowladda dadka ka shaqeeya la farayaa in ay iyaguna aad u yareeyaan dadka dowladda shaqooyinka ay u qabanayaan imaanshahooda iyo xiriirkooda, la koobo goobaha shaqada aan lagama maarmaarka ah intii suuragal ah inay meelo kala dhaadheer ku shaqeeyaan si loo yareeyo in uu dhaco xaalad noocaas oo kaleeta ah. guud ahaan waxaan rajaynaynaa in loo dhaganuglaan doono guddiga dowladdu u xil saartay arrimahaas oo iyaguna soo jeedin doono qodobada muhiimka intaa kasi ah. guddigaas uu madax u yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka. waxaa la qaaday tallaabooyin muddadan u dambaysaba. waxaa la sameeyey goobo haddii dad wax lagu arko lagu karantiilo. waxaa la sameeyey qaybo khaasatan meelaha dalka laga soo galo. waxaa aad loo xoojinayaa dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka in intii suuragala la xakameeyo si dhaba qaybaha kale ee dowladda iyo bulshaduba ay ula shaqeeyaan. waxaan rajo weyn ka qabnaa ilaahay idankiis in xanuunkaas uu ilaahay na hareer mariyo, noogu maaragtay naxariisto tabardarrada aan leenahay runtii aad u hooseysa, imkaaniyaadkeennu aad u xadidan. waxaan sidoo kale ku boorinayaa dhammaan ganacsatada iyo dadka maaragtay ummadda quudisa in ay ka taxadaraan sida adduunka ku socdo oo aad moodid isku socodkii aad inuu u yaraanayo, in ay waxyaabaha quutu daruuriga ee dalka u baahan yahay loo helo stoogyo ku filan dadka haddii ay xaaladdu intaa ka sii adkaato. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu masaa'ibkaas uu na hareer mariyo. waxaase dowladdu ay gashay guud ahaan dareen ah in ay qaadato dareen taxadar xoog leh. waxaa la joojiyey dhammaan kulamada dowladdu ay leedahay laga bilaabo golayaasha wasiirada, golayaasha wasaaradaha, booqashooyinka wasaaradaha iyo goobaha kaleete dowladda. waxaan aad ugu boorinaynaa dad kasta oo aan rajaynaynaa inay dib u dhigtaan kulamadii noocaas aha. waxaan aad uga cudur daaranaya anigoo madaxweynaha ah, fursad qaaliyana ii ahayd kulanka maanta lagu soo ururo halka markuu shirku dhammaaday inaan dad fara badan oo waxtar leh oo waxgarad ah oo ismad ugu muhiimsan yihiin oo dalka yimid in aan fursad fiican uga heli lahaa inaan si fiican fursadda habiyaheed u wada sheekaysano. laakiin xaaladan jirta awgeed waxaan aad u rajaynaynaa in dadka oo dhan ay isla qaataan in aan yarayno xiriirka iyo contactiska abuuri kara. hal xaalo oo abuurantay ayaa dhibaato keeni karta. baqdintaas waxaa na geliyey dowladihii naga xooga waaweynaa waxa ay samaynayaan markaa aragnay. runtii aad baan cabsi noo gashay. waxaan aragnay waddamadii horumarsanaa oo cidlo ah jidadkii, dadkii aysan shaqaynayn, xafiisyadii dowladda aan imaanayn, iskuulladii la imaanayn, guryihii aan laga soo baxayn. marka annaguna weli waxaad moodaan inaan xaalad dabiiciya weli isaga noolnahay. intii hore runtii ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa, inta dambena waa ka rajaynaynaa inay waxaas dhicin. laakiin taxadarkaas iyo taladaas guud oo dowladdu markay falanqaysa waxay qaadatay dhammaan in laysbaro oo la xakameeyo nafta oo contactiska la yareeyo. guryaha xataa marka la wada joogo inkastoo guryaheennu ay maaragtay ay iska kookooban yihiin, laakiin haddana in aad loogu dadaalo in space fiican la sameeyo. ardada iskuullada laga xiray macnaheedu maaha inay goobo kaleeto isugu tagaan ay ku cayaaraan ay aadaan. waxa weeye meel kasta carruurtana in guryaha lagu hayo. iskuulka ma jiro markay noqoto iyaysan makhaayadaha iyo cayaaraha iyo meelahaas aadin. waalidka waxaan faraynaa inay carruurtooda guryaha ku haystaan oo aysan guryaha ka bixin oo ay xakameeyaan. maxaa yeelay khatartan waa khatar dalalkii horu maray ay wax ka qaban waayeen. sida xogta wasiirku uu noo sheegay shalay oo keliya dalka talyaaniga waa tiro 300 iyo ziyaado qof ah ayaa ku geeriyootay oo xanuunka u dhimatay. geeridu runtii aad bay u kobcaysaa. marka waxaan u baahannahay inaan taxadar badan muujino. sidoo kaleeto dadka reer puntland ee qurbaha jira waxaan ka codsanaynaa in safarada ay u soo gelayaan dadkooda iyo dalkooda inay hakiyaan inta marxaladdan ay ku jiraan oo annaguna aysan maaragtay waayo xanuunkan inta ugu badan waxaa dalalka keenay waxa weeye waa hijro u soo hijroonayo meelo kale laga keenayo. sidoo kale dadka reer puntland waxaan faraynaa iyaguna inay safarka joojiyaan sababo kasta oo jiro wixii laga maarmi waayo mooyaane. inaan safarada yarayno, inaan goobaha la isugu imaanaya yarayno, inaan guryaha ku sugnaano muddadaas
wax weyn bay naga taraysaa ka hortagga xanuunkan. waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay u dhognuglaadaan tacliimaadka iyo wararka ka soo baxaya dawladooda oo ka talinaysa maslaxadooda iyo caafimaadkooda. aad baa u mahadsantihiin.